Ma ogtahay in 94% dadka Shiinuhu ay ku nool yihiin qaybta bari ee dalka? Haddaba maxaa sabab u ah? Si aad wax uga ogaatid, nagu soo biir daawade. Sababta koowaad waa arrimo la xiriira dhanka juqraafiyadda. Ugu horreyn, habsamaysanka deegaanku waxa uu leeyahay door muhiim ah. Qaybta bari ee Shiinaha waa dhul wax soo saar leh, sidoo kalena beero badan leh, oo ay carradiisu bacrinsan tahay, barwaaqo sooran ah. Kheyraadka dabiiciga ah ee halkaas ka jira ayaa ka dhigay meel ku habboon inay ku noolaadaan dad badan. Sababta labaad waa arrimo taariikheed. Taariikh ahaan, dhaqanka Shiinaha waxa uu salka ku hayaa gobolladan bari, gaar ahaan agagaarka webiyada Yellow iyo Yangtze. Muddo kumanaan sano ah, meelahan waxa ay ahaayeen xarumo dhaqameedyo, xarumo ganacsi iyo xarumo maamul, taasoo keentay korriinka magaalooyinka waaweyn iyo xarumaha iyo sidoo kale dadka ku nool. Taariikhda dheer ee deganaanshuhu waxay xaqiijisay in qaybta bari ay noqoto wadnaha Shiinaha. Sababta saddexaad waa cimilada iyo fududaanta nolosha. Qaybta bari ee Shiinaha cimiladu waa kuwa dhexdhexaad ah oo ka wanaagsan gobollada galbeedka, kuwaasoo lagu tilmaamo lamadegaan daran iyo buuro adag. Cimilada qaybta bari waa kuwa ku habboon beerashada, sidoo kale waa dhul qurux badan, taasoo soo jiidatay dad badan inay yimaadaan. Sababta afraadna waa fursadaha dhaqaalaha ee casriga ah. Xilligan casriga ah, fursadaha dhaqaale waxay isugu urureen dadka ku nool bari. Magaalooyinka waaweyn sida Beijing, Shanghai iyo Shenzhen waxa ay u muuqdaan inay yihiin xarumaha dhaqaalaha ee adduunka, oo laga helayo fursado shaqo oo badan iyo nolol heer sare ah. Dhaqdhaqaaqyadan dhaqaale waxa ay kobciyeen magaalooyinkan si xawli ah, iyaga oo soo jiitay malaayiin qof inay u soo guuraan. Waad ku mahadsan tahay inaad igu soo biirtay. Haddii aad ka heshay fiidiyogan, fadlan like saar si aad u hesho falanqeyno kale oo faahfaahsan.